بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشو maanta waa 20 September 2022 waxaan joognaa magaalada Hargeysa oo aanu jecelnahay waxoogaa inaanu ka nidhaahdo waxyaabahan dhacaya maalmahan ugu dambeeyay. ballaysin waxaanu ka dhiganaynaa tuduc lahaa naxariistii janna Allah siiye Cabdi Iidan Faarax oo ku jiray maasadiisii daadwaraac ee 3 bishii March 1980 tuduca wuxuu ku oranayaa Cabdi Iidan rag allow ma dooxa ma dilaaciya nabar dabow duur galo olol adiguna digay gubo damba ma u dhaxda waa taagnaa weey waa laga soo gudbay waxii dhacay way dhaceen waan ka soo guuleysano waan ka soo baxnay annagoo gacanta sare leh ayaanu ka soo baxnay dawladdan xamar ee taagta daran ember bisilka la goon kareen ee la doortay 15 bishii May lama doorana de la kala iibsaday bishii May 15keedii 2022 ayaa waxay la soo baxday iyadoo ku dayanaysa tii ka horeysay ee aan iyaduna waxba ka dheefin wixii ay hal ku dhig ku sheegtay ayaa waxay la soo baxday hal ku dhig la yiraahdo Soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa oo aanu haysano markaan xuruufta dhexdooda akhrino inay tahay habaar leeyahay Soomaali aan heshiis hayn dunida aan la heshiis hayn daliilkeeduna wuxuu yahay ereyga Soomaali markaynu ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool geeska Afrika ee diinta dhaqanka dhaqaalaha nolosha wax walba wadaagayeen ku hadlaynaa dadkaasi intaasoo gobol bay ku nool yihiin gobolka waqooyi bari markaynu soo qaadano ninka wajeer jooga nabad ayuu kula nool yahay ninka wajeer jooga nabad ayuu kula nool yahay qofka geerisa jooga nabad ayay gobolka ay degan yihiin ku wada nool yihiin hal ku dhaga Soomaali heshiisa tusaale yihiin waxay walaalnimo iyo nabad la wadaagaan walaalahooda kililka shanaad ku nool ee ku dhaqan nabad ay ku wada nool yihiin waa Soomaali heshiis oo waa tusaale nool oo kale ko kililka shanaad ku nool Djibouti waa xuduud wadaagaan ay la nool yihiin way la nool yihiin nabad iyo walaalnimo ay ku nool yihiin labadan gobol ee ugu sokeeya Soomaaliland nabad ay ku wada nool yihiin waa Soomaali heshiisa waa si inagu fahmayno inuu naqaano waan ku wada faraxsanahay inay heshiisiin Somaliland Soomaaliya xuduud waxa kala wadaagtaa Puntland istaamada Hargeysa baabuur garow tagaysa ka baxdo oo ku garow ku halgeysa imanaya ka soo baxa waa heshiiso waa dad Soomaaliyeed oo heshiisa la shak inay jirto damac yar oo aan sidaa u sii boornayn oo ay Puntland ku sheeganayso qayb ka mid ah Somaliland sida ay tahay dadku isu gudbaayo wada nool iyo wada shaqeystaa waa Soomaali heshiisa sidaasay Somaliland heshiis wada tahay Puntland sidaasay heshiis wada tahay galmudug ilaa ay Jubaland ka gaadho xamar dadka ugu badan ee Hargeysa jooga xamar bay ka yimaadeen dadka ugu badan ee xamar jooga Hargeysa ka tageen waa ummad Soomaaliyeed oo heshiisa isweydiintu waxay tahay marka la leeyahay Soomaali heshiisa ee Xasan Sheekh Al-Qudhiga ka dhiganayso Soomaali heshiisa muxuu u jeedaa waxaan u fahmaynaa oo aan idin cadeeyo tusaalayaal nool iyo ku cadeeyay inuu u jeedo Soomaali aan heshiis ahayn Soomaalidaas aynu goranaynaa Soomaalida wada nool ee wada socota wada shaqeynaysa wada socota ee meel walba joogta
aan kala qanuunayn aan islaynin markay ka tagno dagaallo yaryar oo kale oo dhinacyada ka socda oo ama diiniya ama qabaliya ama xoolo la isku leenayo ama ceel la isku leenayo Soomaali sidaas heshiis u tahay intaynu nagu arkayno laakiin tii nidaamkaasi wuxuu doonayaa uu daydayaa Soomaali heshiisa dunidana la heshiisa meel Soomaaliya adduunyada isku laayeen garan mayno jawaabo kuwan ka baa dhacay waraaqi ictiraafka inta la siiyay Soomaaliya oo dhan lahayd haddana inay waxaan daydaynaa Soomaali dunida la heshiisa dunidu kooxo iyo kutlado iyo kala nooshayo diblomaasiyad baa ka dhaxayso oo way istirinaano waa kuwa istilayo haddana waxba u kala socdo waa la wada hadlayo ganacsi baa socdo waxbarasho socdo dhaqan baa socda marka xamar laga leeyahay dad Soomaaliyeed oo heshiisa ama Soomaali heshiisa sheekadu waxay ku soo foorarsanaysaa cadaawad kale oo jirta ma jirto waxay ku soo foorarsanaysaa oo laga cararayaa in afka lagu dhufto Somaliland la leeyahay kii afka kala qaadaaba sidii madaxweynahaasi u hadlayay maalintii dhaweyd wuxuu la soo boodayaa inaanay Somaliland go'i karin inaanay waxaa noqon karin inaanay sidaas samayn karin marka lagu leeyahay Soomaali heshiisa wax kale oo looga socdaa ma jirto oo meesha yaala waa Somaliland oo soo hoos gasha taasina waa baabacada timakeega wax dhacaya ma aha horena u dhici weydii imika dhacay dhici mayso maalin dhaweyd madaxweynaha dowladda federaalka isagoo ka hadlaya meel ay ku urursanaayeen dadkan laabtu daastay dibadaha ku nool annagu aan u naqaano gabratan dayeysan ayaa wuxuu lahaa Somaliland ma guuyi karto ani waxyaabaha ilmaha caruurtii aan ku hadaaqeen Somaliland 1960 iyadoo iskeedu socotaa oo caageedu ku socotaa oo walibana waxyaabaha loola tagay ee lagu soo dhaweeyay aan u qalmin oo saami qaybsigii laga qadiyo tuulba lagu sameeyay waxa wax ka weyn baan u soconaayo waynu israacayna isu tag baynu sameeynaa si aynu saddexdii kale u baahi doono siyaasaynu ku wada joognay dhibaato badan ku mudanay oo wax badan nagu soo gaareen dagaaladii Itoobiya 46 baan nagu soo gaaray 77 baan nagu soo gaaray oo masraxa dagaalku Hargeysa ahaa birjeex ahayd 26 ka qaybta 26aad uu dagaalku soo lagu hogaaminayay oo dadkaygu waxay duuniyay dad balaayeen ay ku baabeen halkan aanu ku soo wada koobi kari maayo wixii naga galay Soomaali ururinteeda iyo badbaadinteeda ayaa maanta haddana la leeyahay meel ay kartaan ma jirto 60kiina annaga nimid 19kiina annaga tagnay shan farood iyo calaacal ayaanu ku tagnay kaba biro iyagoo xidhan ayaanu halkan ka dhaqaajin waa la wada nooliyo waa la wada joogaa xasan markuu sidaa u hadlayo Minnesota joogaa dad laabtu daastay waa hore ayuu la hadlayaa wax kale aan maqli karin Somaliland ma guuyi karto iyo meel ma mari karto mooyaane halkaas uu joogay nigtay buuxnaa suud buuxnaa uu fadhiyay musabixi markuu isaga u jawaabayay gawaan cidla abu dadkiisii kula hadlayay intaasoo maalmood buu safrayay oo maalingaal ku jiray oo guura iyo carra uu ku jiray lug iyo faras buu ku dhaqaajiyay waliba sidaasaa waxa kaga dhinaa baaskeelada safarka ugu talagalay oo islahayn qaybo kamid ah ha ku mara dalka oo in dib nooga dhacay kuwaas ayaguna weli naga sidnaa dadkaas u dhex joogo waa dadkii la soo dagaal galay kuway dhaleen kuway abtigo ahaayeen kuway xigtada ahaayeen
musabixii maalingalkii uu ku jiray wuxuu ku tagay xuduudda ugu dambaysa ee jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay been ku hadli maayo haddaan ku raado dekaahi garawe uu u muuqday habeenkan aqalmo musaxano garoon shiidkii intuu la soo baxay ayuu gaga cidla ah xidigaha iyo dayax tirinay dalkayga saasuu gacanta noogu jiraa labadii Soomaaliyeed oo isu tagtay saasaanu gacanta ugu haynaa tii aanu mas'uul ka ahayn waanu qaadno Soomaalida doontaan isoo waan ka caal weynay waanu tagnay halkaygii baan joognaa dalkii uu tolan yahay waa isku mid uu xiran yahay waa ammaan jamhuuriyaddii aanu berigaa isku tagay Israaca isku nimid maanta waa 5 gobol iyo xamar 5 calan iyo 5 dawladood waa khasaare weeye maanta meel laga toltolo iyo dilaaca meel laga soo ururshushubiyo garan mayno taasaana lagu canaananayaa oo weliba lagu hanjabayaa waxaan u qaadanaynaa sheekada sheegay niman beri islaayo mid shalmadi ka luntay dabadna uu doontay oo dabadna nimaad ka baqeen islaanoo yiri mushaar iska agranaysa dawladda federaalka xamar shalay waxba iska ma agranayeen kuwii dalkan dumiyay ee burburiyay dhagar qabayaasha ahaa ayay u taqaanaa geesiyaal qaran ciidan aanu ka adkaanay oo dirirtiisii lagu kala baxay oo aan waxba ka noolayn ayar u yeedho soo kaxaysto mar labaad haddana haydan qabsadaan waxaasi wax aqliga galaya ma waxaanu leenahay oo hadalkayga ku soo ururinayaa Soomaali wixii dhacayna way u soo joogtay waxa maanta yaalana way u joogtaa nabad iyo wanaag iyo walaalnimo ka xignaa cidii inta garan weydaa waxay ka hesheeladay inaanu xasan ogeyn xaaladda uu ku nool yahay xamar waxay ku nooshahay waxa ku cadeynaya clip yaro xagga dambe aan idin ku qaban doono nin isma banaadir leeyahay xamar ku iibiya calamada ayaa la weydiinayaa la oranayaa ka loogu iibsi badan yahay astaamaha loogu iibsi badan yahay waa kuwee markaas uu xoranayaa waa calanka iyo astaamaha Soomaaliland su'aal kale la weydiinayaa waxa la weydiinayaa calankii buluukiga isaga see loo iibsadaa ma sameeyno uu meeshana ma yaalo mana iibno oo ay cidnaga iibsanaysan jirin ba kabar reerkee ugu badan oo gata waxaan reerka ugu badan gata Soomaaliland waay Soomaaliland wuxuu gata Soomaaliland ama ragooda dumarkooda aad u jeceliin calamanka gacmaha waxaas geliyo farati kaatuunyada calamanka kullu ragooda waxa dukaanka ugu badisay waa gataan waxa dukaankii xaf Soomaaliland waay xafna Soomaali waay Soomaaliland kan markay qaataan calamada kala geedisan Soomaaliya qaata marka Soomaali wala gataa laakiin markii iskuulaadka lagu qasbo waay iyagoo raali ka ahayna alag Soomaali gadanaya laakiin hadda cid ka gadata bale ma iskuulaadka markii oo xaflad ka jirto dharka Soomaali soo gataa calanka iyo soo markaas ay iimaan xaaladdaas waa xaaladda xamar weyne ka taagan iyo xamar oo dhan iyo dalkan waxa xasan leeyahay madaxweynaha xasan ayaanu kolba muruq beena intuu kortahay gacanta oo dhan diblomatic masal waxa diblomacy oo dawladdaas leedahay ma jirto safaaraduhuna waa dukaamo lagu ganacsado dadka xoolahooda lagu cuno warqadeena la siiyayna waxa loo siiyay bal inay dagaaladan iskoy soo shubin karaan oo isu qaadan karaan dawlad waxa la yiraahdo waxay ku tahay caalamka inay kala noqdaan ma jirto mar aan fogeyna way dhici doontaa محمد آدم دعرين وين شريو ديلي لا يلاحظه ونول يهاي لا عمري سال عليه ديلي يكون شري أيا وحوي هذه في دبلة هاي دبادة يكون قارن لهاي تدنا برشة ومحرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته